waxaa jiri jiray gabar lagu magacaabi jiray Habboon. Aabbaheeda waxaa lagu magacaabi jiray Xuseen. Habboon aabbaheeda waxa uu lahaa 2 xaas, mid kastana waxay u haysay inan, waxaana lagu kala magacaabi jiray Habboon iyo Hilwaad. muddo kadib waxaa geeriyootay Habboon hooyadeed. murugo iyo tiiraanyo kadib, aabbaheed ayaa waxa uu soo kaxeeyay gurigii eedadeed si ay ula noolaato. Habboon iyo Hilwaad waa 2 gabdho oo isku asaag ah, hase yeeshee Hilwaad waxba uma dirto hooyadeed. hawshii guriga oo dhan waxaa hayay Habboon, sida haanta loo sameeyo, mar kastaana way ku qaylin jirtay. muddo kadib waxa ay gaareen guur. Habboon iyo Hilwaad waa la soo doontay, aabbahoodana wuu bixiyey. waxaa dhacday Habboon reerkii loo geeyey in ay hawsheedii qabsato, ileen waxay ahayd qof wax soo bartay. Hilwaadna reerkii guursaday way la yaabeen, ileen waxba ma taqaan. waxaa dib loogu soo celiyey gurigii hooyadeeda. hablihii deriska ahayn ayaa la yaabay, waxay ku dhaheen, gabadhani eedada aad u ahayd reerkeeda ayay dhaqanaysaa, ee maxaad gabadhaada wax u bari weysay? hooyadu waxay uga jawaabtay, waxay ku tiri, cabiidso oo cadaadii baan islahaye, ee cilmi bar isma lahayn.